السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم عن دعوة الكسر دوادا برنامج كمدرسة سياسية أو هذا هي وكالات كدعوتان سوم نيوز تي في حرونته وكل هي مقالة مقدسو برنامج كتضبط كان وحامرتي إنه جواه مدحويني هراء مامولك هيرشبله دكتور علي عبد الله عصبله برنامج كوحنا كوفا قديدنا guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xaaladaha siyaasadeed ee ku geedaaman maamulka Hirshabelle oo madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee maamulkaasi uu yeesho mudan madaxweyne marka hore soo dhaw oo mahadsantihiin waa dhaw waa kaga mahadcelinaynaa sida qadarinta ay ku jirto ee aad inaga ogolaatay in hoyga aad ka degan tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho aan kugu soo boqono barnaamijka madasha siyaasigana aan kugu wareysano toddobaadkan ugu horeyntii waxaan jeclahay mudan madaxweyne tan iyo markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen dood fara badan iyo hadallo adadka oo warbaahinta la isu mariyay kadib waxaad ku sugnayd meel ka baxsan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Hirshabelle dhawaan waxaad booqatay aad tagtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaadna kamid ahayd xubno u tartamayay kursi kamid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waan xusuusanaa in si weyn lagu soo dhaweeyay Jowhar bar guud ahaan sharaxaad inaga sii waayahay bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeyso horta waa idin mahad celinayaa Som News adiga kruuga kula socda intaba soo dhawaada idin leeyahay guud ahaan tegideydii aniga Jowhar runtii xiise gaar ah ayay ilahayd macno gaar ah ayay ilahayd waa Jowhar oo magaalo aan jeclahay waa magaalo aan muddooyin kala duwan ku shaqeeyay oo magaalo runtii aad u qiimo badan dadkeeduna dad aad u qiimo badan yihiin marka inaan magaaladii ku laabto mar labaad oo aan tago ayaa wax walba aniga iiga xiiso badnayd oo runtii sababaha aanba u aadayba priority-ga koowaad yacni kursiga keliya hadda ma aysan ahayn waxay ahayd Jowhar inaan tago inaan dadkii is aragno inaanan wax uqdada qabin wixii dhici lahaa waa dhaceen wax walbana qadar alle ku dhacaan marka laakiin in aan marka dadkii walaal in la yahay oo loo baahan yahay in hore loo socdo inta inay aniga nafteyda dhinacay ka dareemaan ayay ahayd ujeedka ugu weyn aan ka lahaa aniga magaalada Jowhar tegideeda si weyn waa la ii soo dhaweeyay ama dadkii deegaanka ahaa ha noqoto ama ha noqoto dadkii mas'uuliyiinta ahaa ha noqoto ama ha noqoto dadkii xildhibaanada ahaa intaba waa gartay waxaa la xusuustaa xilka qaadistaadii nuuc walbaba ha ku timaado waxaan ogsoonahay in aad ugu doodi jirtay in aad tahay madaxweynaha xaqa ah ee uu leeyahay maamulka Hirshabelle aad ku doodi jirtay hankaagii halkuu ku dambeeyay wallaahi kulley anigu horena waa u sheegay wixii dhacayba hadda mid laygama filayn inaan qoray inta qaato aan dagaalamo wuxuu ahaa dhib iyo mashaakil oo shakhsiga noocaas ah maba ahiba de taa kulley waxay ahayd waa wax taariikhda hadda ku qoran waaye hadda in hore loo socdana waa loo baahan yahay lama dhihi karo keliya muxuu ahaa meeshii madaxweynihii sharciga aan ahay waa sax nidaamka iyo sida ay wax u dhaceen wax sharci waafaqsan ma ahayn ciddii haysana hadda ayadaa soo bandhigi doonta laakiin waa laga gudbay waa gartay waxaa jirtay hadallada adka oo aad isweydaarsateen qaar ka mid ah siyaasiyiinta hadday ahaan lahayd dowladda dhexe haddii ahaan lahaayeen xubno kale oo qayb ka ah labada gole ee dowladda iyo xubno kale oo ku jiray maamulka Hirshabelle aad isweydaarsateen arrimihii oo dhan waxaad ku soo koobaysaa in laga gudbay oo bog cusub u furmay bani aadamku wuxuu ku qasban yahay inuu hore u socdo waqtiguna waa socdaa aniga qof aan hadallo kulul isdhaafsanay horta waa laga yaabaa hadalka in loo arko inuu kulul yahay laakiin hadal sharci ah unbaan aniga ka hadlaya cid gaar ah oo aan shakhsiyadeeda wax uga sheegayena hadda ma ayan jirin
cidaan leeyahay anigu hadda waa ay ii jawaabeysay oo iyaduna warbaahintii taagnaydna aniga ma xuso laakiin arrimahaasu haddee waktigaasay ahaayeen bog walba marka boggii barnaamijkii dhammaadaa in la laabo ayuu ku fiican yahay kii unbaa furnaanaya haddii la yidhaahdo dee soomaali 90kii taagnaan lahaydoo waa isdilinay taagnaan lahayd weli iyo hana loo kala jiido waa gartay waxaa lagugu doortay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle doorashada markii ay socotay xubno kale oo qayb ka ahaa doorashada waxa ay tilmaamayeen in doorashada hadalloga ay ku lahayd dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi balka waran lug waa ku lahayd sababtoo ah dowladdii dalka ka jirtay ahayd inay hirshabelle inuu maamulka dhismana dowladda ayaa wadayba oo dhisaysay laakiin dhaqaale la isku dhiso oo madaxweyne lagu dhiso kolley anigu waxaan u malaynayaa puntlandna ma dhicin jubbalandna ma dhicin galmudugna ma dhicin hirshabellena ma dhicin marka waxaan annaga uga duwanayn iyo koonfur galbeedna ma dhicine waxaan annaga uga duwanayn ma jirto tuhun dadku waa iska qabi karaa mabana xumaba hadda ciddii taageero ka helaysa dowladda dhexe haddii wax la dhisayo haddee siyaasadaa laga shaqeynayaa wax kale maaha waxa laga shaqeynayo ma aha muxuu ahaa arrimo kale dee siyaasaddana hadda waa la isku taageeraa caalamka hore u maray ayaa wadamo kale ayaa wax ka taageera oo wax muxuu ahaa axsaabaa jirta wax walbaa jira kolley ayada nafteedaanba dembi ahaynaan qabaa aniga laakiin ma jirin miisaaniyad idiin qoondaysay dowladda dhexe oo maamulka hirshabelle loogu talagalay si arrimaha ku xeendaaban maamul goboleedka soomaalida iyo hirshabelle ay howlaha ugu fududeystaan oo ay kusii wax qabsan karaan maya ma jirin sababtoo ah annaga hirshabelle waxay dhalatay xilli kala guur ah hadday dhalatay xilli kala guur ahna wax miisaaniyado markaa la hayay ma jirin kadib doorashooyinaa la galay kadib maamulka iyo dowladda hadda jirta markii ay meesha timi ayadii nafteedii iyo barnaamijkeedii marka miisaaniyadda mudday qaadanaysaa waqtigaa markii lasoo gaaray kadib waa lasoo gudbinaya marka horey uma dhicinba hadda unbaan baarlamaankii hadda ahaa kalfadhigii hadda ahaa intaan la xirin ayaan xusaa un mar wuxuu ahaa wasaaradda maaliyadduna ay soo gudbisay budget walow dhaqaale yar uu ahaa oo dowlad goboleedka hirshabelle ay ugu talagaleen ka hor ma jirinba waa gartay intii aada xilkaysay waxaa la xusuustaa in jowhar ay ka qabsoontay doorashadii xubnaha aqalka sare iyo xubnaha aqalka hoose ee dowladda walow xubnaha qaarkood la tilmaamayay in xisbiyo iyo rag kale ay gacan saar la lahaayeen oo ay lolan adag uu ka jiray intii madaxweynaha ahayd ayay doorashooyinkaasi qabsoomeen xusuustaada xanta doorashada inkastoo uun xan bannaan taallay ahayd haddana waxyaabihii kugu adkaa doorashadaasi intii aad madaxweynaha ahayd aad kala kulantay maxay ahaayeen waa ilaahay mahadii horta si ceeb la-aan ay noogu dhammaatay hase ahaatee loolanka siyaasadda annagoo markaa cusub cid ku kaalmeynaysana iyadoo aysan jirin marka ay timaado xildhibaano 40 ah yacni ayaa la dooranayaa kursigii oo kursi walbaa hona intaa oo musharax ay u taagan tahay qaar hore xildhibaano u ahaayeen kuwo hadda damacsan yihiin kuwo dowladda gacansaar la leeyihiin kuwo warkooduba uu ka bilaabanayaba baarlamaanka un aan soo galo yacni nimankaa joogay anaa aqaana sidaan ka yeelaye yacni runtii waa garan kartaa xamaasadda meeshaa ka abuurmaysa iyo culayska iyo dhibka iyo yacni de haddee inaan shaarka gacmaha laalaabano oo aan gacanta la galno oo aan ka shaqeyno bal meeshaas nabad inay wax walba ku dhacaan hal shil ayaa jiray oo aada u fududaa weliba dadka uu ka dhexdhacayna la islahaa hadda dadkaasu wax dhiba
kama laakiin runtii aaday u cuslayd doorashooyinku arrimaha siyaasadda iyo yani waxyaabo badan marka ay kula soo gudboonaadaan sidaad go-aankooduna uu noqdo mid adiga weliba yani inaad go-aan ka qaadato u baahan oo bilmathalan in kuraasta gabdhaha la qoondeeyo yacni in muxuu ahaa reer hebel adinka gabara idinka soo baxaysa la yidhaahdo rag hadde feere waaweynna ay meeshan ku hertamayaan oo ay leeyihiin waa keeni adkaada sanadkan ha laysu keen fiirsado waa dhibaato aada u culus waaye marka kuraastu kalama dhib yarayn yacni shaqo fududna meeshaasu kama jirin reer waa jiray waxoogaa aada u asluubeysano iyagu muxuu ahaa yani nidaamkooda marka horeba banaanka kusoo qoondaystay kuwo gabar wadaaba jirayba laakiin un dhibaatooyinka ugu waaweyn hadda na soo maray waxay ahayd un kuraasta gabdhaha sidee loo xaqiijiyaa sidee 30% lagu heshiiyey runtii waana ku guuleysanay laakiin sidee loo helaa reerihii sidee loogu kala dooraa oo reer hebel iyo reer hebel doorashadii ma hakin kartaa ummad wada hubeysan oo yacni fara badan oo soo daba kacday yacni dal iyo dibad ka timi oo yacni magaaladii wada ciiraysa oo doorashadii ma hakin kartid reerkii uma bisla gabar ayaa hadda xildhibaan idin noqonaysa yani solutionska marka inaan raadino inaan si aada un bal u dhexgalno inaan wax un isku jiidjiidno waxyaabo badan marka culaysku aada u badnaa ma ahayn xildhibaan hebel iyo xildhibaan hebel iyo xildhibaanada kuwa dowladdu hadda ka soo horjeeday oo yani waxaa ka mid a dowladdii markaa jirtay waxaa ka mid ah cabdullaahi goodax barre oo bilkuliyanba yani qof walba oo dowladdii jirtay ahayd ay taagnaayeen muxuu ahaa yani war ninkan xal kale ha loo helo yani cabdulqaadir cusable kadalika lamid u ahaa oo muxuu ahaa yani kursigaa gabarba ha loo asteeyaba yani si muxuu ahaa yani waxyaabo badanoo waxaa jira runtii imtixaanaad culculus oo naga hor yimid laakiin ilaahay waa noo fududeeyo waa ka gudubna waa gartay marka laga hadlayo dadka odorasa siyaasadda ee deegaanada hirshabeelle waxa ay tilmaamaan intii madaxweynaha ahayd caqabadihii ugu waaweynaa ee maamulkaaga uu wajaho waxaa qayb ka ahaa ayay sheegaan xilka qaadistii wasiirka maaliyadda ee hirshabeelle in meelihii caqabadaha ay kasoo bilowdeen oo dagaalkii qaboobaa ee maamulkii aada hogaaminaysay meelihii biyuhu ay kasoo galeen iyo booqashadii deegaano ka tirsan gobolka hiiraan inay saldhig u ahaayeen arrimahaas makuu muuqdaan adiga maya sababtoo ah dee wasiirku waxuu ahaa muwaadin la magacaabay haddii xilkii laga qaadayna dee shaksi kale oo muwaadina ayaa loo magacaabay marka anigu taa wax culeysa ay lahaydna ma jirin booqashada deegaano ka mida hirshabeellena waaba dastuuriya ma aha mid iyadu caqabad ka imaan karta ama culeys ka imaan karo arrimo kale un siyaasadeed iyo waxaa oo iska jirjira waa meesheeda arrimaha kale ee siyaasadeed ku muuqday maxay ahaayeen annaga waxa waaye maamul sideed mas-uuliyad haddaad qaado adiga xil ayaa ku fuulaya ummadda intaa la eg ayaa xilkeedu ku fuulaya inaad wax qabataa loo baahan yahay xilkana looma qaado in lagu xaragoode waxaa loo qaadaa in lagu shaqeeyo ummaddana wax loogu qabto noloshoodii waa inaad wax ka bedeli karto waa inaad dhalinyaradii shaqo u abuuri karto waa inaad amnigii wax ka qaban karto waa inaad muxuu ahaa dadku waa beeraley iyo xoolo dhaqate waa inaad wax u qaban karto oon ayaa ka jira iyo abaaro ayaa ka jira waa inaad wax ka qaban karto waxaasoo idil waxaa furo u ah dhaqaale runtii dhaqaaluhu hadduu yaryahayna waa la isnacayaa waa yani reerka isnacaya iska daa cid kale yani muxuu ahaa marka dhaqaalaha dalka soomaaliya ilaahay waa nimceeyey khayraad badan waa ay leedahay laakiin qaabkii looga faa'iideysan lahaa weli waa naga dhiman yahay marka waxaa hadda la heli karaa waa wax yar dekad haddaadan lahayn dee dowladdii dhexe unbaad uga baahan tahay dowladdii dhexe ayada nafteeda tabarteedu uma badna
marka caqabadaha ugu waaweyn annaga na haystay runtii waxay ahaayeen dhaqaale yacni ma ahayn waxaan u qaylinayna waxay ahayd sidee dhaqaale loo helaa sidee dhaqaale loo abuuraa warshad balcad ha dhihin iyo Somaltex ha dhihin warshadii sokorta ha dhihin jowhar ha dhihin dekad iyo ceelmacaan iyo halka ay dhaqaale in la helo haddaan dhaqaale la helina yacni way adkaanaysaa sida wax loo qabtaba dadka ummadda title-kooda iska wado adigoo xaflado iska tag oo meelo shirar ka qayb gal oo meelaha la marmar yacni darajada sheego anigu wax macnaa weyn oo ay samaynayso ma aanan arag haddaanan wax dhaba la qabanayn waxaa la xusuustaa intii aad xilka haysay in gogoshiisu la dhigay shir looga hadlayo maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho looga hadlayo in gogoshiisa la dhigay balcad Shabeellaha Dhexe la dhigay su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay balcad waxay ka tirsan tahay Hirshabeelle gobolka Banaadir iyo maamulkii xilligaa jirayna shirkaasi dadkii lagu casuumay ku madlana qayb muusan ka ahayn ujeedka shirkaasi maamulkii aad adiga qaybta ka ahayd uu iclaamiyey muxuu ahaa Soomaaliya dib u heshiisiin ayay ku jirtaa weli muddo dheerna way kusii jiraysaa sababtoo ah waxaa maanta nool oo adduunka dushiisa jooga dadkii dagaaladii sokeeye Soomaaliya ka dhacay qaar ka mida kuwii sababta u ahaa weli waa nool yihiin kuwii dhibaatadu soo gaartay waa joogaan kuwii ku dhashay waa joogaan yacni dhowr iyo 20 sano oo muddo dheer dhinac markii laga fiiriyo ha u ekaato laakiin taariikh la ilaaway maaha taariikh laga gudbay maaha sababtoo waxaa jooga kuwii isdilay ayaa weli nool oo generationkaasu inta baxay generation cusub oo aan dagaal sokeeye arag keliya maaha dalka waxa jooga ha jiraan dhalinyaro badan yacni oo dad badan oo dhashay ha jiraan wuxuu ahaa dagaaladaas sokeeye kadib laakiin dadkii weli waa joogaan boogihii weli waa jiraan in daaweyn la helo daaweynna dadka guud ahaan in la wada qanciyo siyaabahaasa horta lagu heli karaa arrinka balcad wax kale ma ahayn waxay ahayd annagu inta balcad maamul ku dhisno ayadoo maamul ka jiro halkan gobol iyo dowladdii dhexe yacni inta soo kaxayno kontaroolka Hirshabeelle meesha ay ku egtahay inta keenno ciidan kuma soo darnayna orod gobolkii waa kaasaayo meeshaasaad mas-uulka aan kaaga soo dhignay qabsama yacni waxaas ma ahan laakiin waxay ahayd fahamka in loo baahan yahay in maqaamka Muqdisho wax la iska yiraahdo dadku inay wax iska yiraahdaan Soomaali inay wax iska tiraahdo qaabun in looga gudbo waayo 2000 carta maalinkii la soo dhisay ilaa iyo maanta weli kelmadaas waa taagan tahay Muqdisho in xal loo helo Muqdisho oo yaa xal u helaya marka qolo walba waxay u tuurtaa gadaale u tuurtaa waxay u gudbisaa generation ka dambeeya maamulka kale ka dambeeya nidaamka cid diyaar u ah inay arrimahaas solution waa loo heli karaa dalkan waa la wada leeyahay magaaladan xamar reer gooniga ma Soomaaliya oo dhan wada dhisatay waa gartay waxyaabaha kale la xusuusto waxa qayb ka intii madaxweynaha aad ka ahayd Hirshabeelle waxa la tilmaamay in degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir aad tilmaantay in ay ka tirsan yihiin Hirshabeelle bal arrinkaas ka war adigu xilligii dagaalkii aad xasuustaa kaliya Soomaa bahashu markay xariiq jidid hadday gasho meel walba ay galaysaa xamar waa la yaqaanaa Shabeellaha Dhexena degmada ugu soo sokaysa waa balcad oo ayadana waa la yaqaanaa iyo controlkeeda laakiin xoogaa ayaantaas iska gorgortan wax ahay iska ahayd wax kala jiidasho ma ahane muxuu ahaa yacni Soomaalida waa taqaanaayo dhaqanka haddii aad yacni qofka haddaad wax ku qabsato markaas unbaa aadna laga yaabaa inaad wax ka hesho
haddii marka annaga dhaqaale see loo helaa meeshaan annagu ka fikirayno marka war dhaqaale haddaan laydiin heli karin walba ha laydiin fasaxo inaad ceelmacaanna ma fududa runtii innagu ceelmacaan marka aan leenahay un waxoogaa waxbaan uun yacni uun isleenahay uun waxoogaa ku soo dhaweysta un maahane ceelmacaan in hadda dad contaynaro ay u degayaan badeecadooda ayadoo nabad qabtaa oo insurance u leh nin badeecadiisa doon iska soo saarayo oo inay ka qoydan rabaa ma jiraba in la kiciyana hadda magaalada oo idilay u baahan tahay laakiin haddaadan xal kale aadan hayn oo dhaqaale ummaddii aad wax ku maamusho mushaar iyo mashaariic iyo barnaamijyo iyo howl lagu galo haddaan lahayn inaad tirade haddaanan dekedaa muqdisho haddaanan wax ka helayn xataa midaanan aniga marka macbilka ah balow dad uun iigu soo xirta helaya maxuu ah ayadaasaan nafteedan ku shaqaynaynaa laakiin arrin fudud maba ahaba waa gartay duqii hore ee muqdisho daabid cabdi maxamed arrimahaasi ma ka wada hadasheen ma jiray hadallo idin dhex maray oo la xiriira maqaamka caasimadda iyo haddii aan lahayd dekedii muqdisho iyo qaybo ka tirsan gobolka banaadir oo qayb ka ahaa arrimahaas ma jireen wallaahi goorba hadduu xasuusta dhinaceeda isaga igu dhaamo ma ogin laakiin anigu hadda dad badanaaban la hadlaynay ma ogtahay hadal gaar ahoo hadda ku saabsan arinta ayada ah iyo barnaamijka iyo hadee ma aysan jirin dabcan hadduu gobolkii gobernatoore ka ahaana mid waa inuu yiraahdo gobolkii sidaanuu ku fiican yahay de waaba macquul aniga haddaan gobolka banaadir gobernatoore ka ah sidaanuu ku fiican yahay handhihi lahaa hala daayo waxa kale laga hadlayo marka ma sheegi karo ma xuso hadda waa gartay haddaan dib ugu laabano hirshabeelle iyo waxaa jirtay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ay shireen xilka ay kaa qaadeen xubno kale ay sheegeen in madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka shir jaraa'idoo aad muqdisho ku qabatay waxaad tilmaantay in dhinac saddexaad uu jiro oo arrimahan ku lug leh uu jiro arrinkaagana maxkamadda sare ee dalka aad warqad geyn doonto halkay ku dambeysay dacwadaadii maxkamadda sare waxaan xasuustaa inaan u gudbinay xasuustaaye dee maxkamadda sarea loo baahnaan lahaa su-aasha in la weydiiyo aawo dacwadii xaggee geyseen in la yidhaahdo eedeynta ugu badan waxaad u jeedinaysay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe gaar ahaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma kulanteen weli marka howlihii ay adlaadeen kadib arrimihii ma la iska xog wareysto ma kulanteen sidii arrimaha dhan dalka waa ka maqnaaba haddaan imina uun arrimahan doorashooyinka iyo barnaamijyadaasaan fiirinayo marka isma wax kulan oon dhex maray ma laha jawhar waxaa la xusuustaa in ay tahay meeshii lagugu soo doortay dhowaanaad waxaad ka qayb gashay doorasho kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ku dhowaad 5 xubnood aad ku tartamayseen qaar ka mid ah raggii ka qayb galayay waxaa qayb ka ahaa adigoo ah madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle taliyihii ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo xubno kale oo kursigaasi u tartamayay qaar ka mid ah dadkii u tartamayay waxay tilmaameen in kursigaasi doorashadiisu aanay u qabsoomin hanaan cadaalad ah aanay u qabsoomin adigu dadkii u tartamayay kursigaasaad qayb ka ahayd doorashada sidii ay u dhacday sidee kuula muuqatay aniga 46 mase 47 kursi oo aqal hoose ahna doorashadooda mas-uulka ugu sareeya ee yani hawshaa gardaadinaya ayaan ahaa iyo 8 xubnood oo aqalka sare ah runtii doorashada hadda kursiga xildhibaanka ee lagu tartamaya jowhar haddaan qiimeeyo waxaan dhihi karaa anigu si nadiif ah oo qurux badan oo xalaal ah ayay u dhacday dee haddee ciddii sidaasi ka duwan u aragta dee malaha jawaabta soo baxdaysan ku qanacsanayn markaad tartamaysana dee ilaaha la tala saartaa waxa inaad hesho iyo inaad weyso labadaba waa u dhaxaysaa laakiin haddaad adigu kursi inta is siiso
aad tiraahdo anaa iska leh yacni kursigii haddaad weyso marka dabcan waa imaanaysaa inaad cid walba ka shakiso oo tira malaha kanaa ku dhaafiyey malaha kanaa ka dambeeyey malaha kanaa sidan ahaa laakiin aniga waxaan ku ogahay eedaha meelaha ka soo yeeraya ee dowladda dhexaa faragelin ku suubisay wax kama jiraan guud ahaan markaad eegto xaaladda siyaasadeed dalka dhowaan dowladdu ay sanad diirsatay waxaa 8 Febraayo waa doorashadii madaxweynaha ay ku beegan tahay sanad kadib dowladda ma kuu muuqataa in ballanqaadyadii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sanad ka hor ballanqaaday baarlamaanka ka hor intaan la dooran inun ay ka hirgashay wallaahi madaxweynaha haddii la doortay horta xukuumad ra-iisul wasaare ayuu magacaabay xukuumad golo wasiire ayaa la dhisay shaqaa loo dhaqaaqay dabcan afkaartii iyo talooyinkii madaxweynaha in lagu socdo ayaa waajib ah rag ayaa shaqaynaya guud ahaan aniga haddaan qiimeeyo horey waa loo socday yacni haddaan de jawaab nin siyaasiya oo un waxqaba haddaad iga rabtana de waa gooni laakiin xaqiiq dhaba haddii loo hadlayo waxbaa la qabtay horena waa loo socday isbeddelku waa jiraa soo kabashada dalkana ma aha mid un yacni sidii derbi buluketiyo jajabnaa mid kale inta la saaro lagu salaaxayo la shamiintaynayo waa kaa waa dhisnaya arka la dhahaya maaha soo kabashadu muddo aad u dheer ay qaadanaysaa laakiin in hore loo socdo anigu shaki igama jiro in la dadaalayo shaki igama jiro in corruptionka lala dagaalamayo shaki igama jiro in amnigii la isku dayayo in wax laga qabto shaki igama jiro yacni dhinac walba laakiin dee wixii ma noqonayaan wax samada ka soo dega waxa waaye un maanta inta ka jiid xagga midkaad amarka siisay oo aad tiri sidaa u fuli ayaa meeshii meel ka sokowba ku leexanayaaba yacni nidaam burburay yacni wuxuu ka dhib badan yahay wax kastoo kale dhismihiisa iyo toosintiisa ku celintiisa sidii un macallin dugsi oo kale un in la noqdo oo un qof walba la kor taagnaado oo qof walba un lagu hayo muxuu ahaa maxaad u leexatay maxaa sidaan sababtoo qaar maba aragba nidaamka dhanba wax nidaam la yidhaahdaba hore looma arag dad badan weligood kuma aysan shaqeyn dad badan waxay qabaan dee lagu arki maayo sidaad rabto un samee marka dhibaatooyinku aaday u badan yihiin hase ahaatee dadka mas-uuliyiinta qaranka ah aniga waxaan leeyahay haddaanan la siyaasadayneyn oo si xalaala loo hadlayo wax waa la qabtay waana ay dadaalayaan horeyna waa loo socdaa waa gartay dhanka kale haddaan dib ugu laabto jowhar iyo arrimaheeda waxaa la xusuustaa in aadan wareejin xilka kadib markii baarlamaanka maamulka hirshabelle mar kale madaxweyne ay doorteen maxaad xilka u wareejin weysay aniga baarlamaan ii yeerayo kaala yiri mooshinkaana kaa yaallay codaa la qaadaya inta soo fariisay ma jiran marka baasha hadda sharci laguma soconba marka ciidan ku soo wargelin oo hawada un fariin kaaga soo fartay oo ku tiri xilka waa kaa qaadnay hadda waayahay ciddaad doontaan u dhiibta imaanaysa marka jowhar markii aad tagtay loolankii siyaasadeedna aadan ku jirin oo ujeedo kale aad jowhar u tagtay raggii loolanka aad ku jirteen sidee ku arkayeen wallaahi waxaa ka muhiimsan aniga sideen isu arkaya sida ay ayaga ii arkayaan iyo dadka kale waxaa ka muhiimsan anigu sideen ii arkayay anigu maxaan aaminsanahay in aniga aan yacni nin buufis ku dhacay noqdo oo mar madaxweyne haddii la yiri yacni wax kale yacni ma ka shaqaynayo waa inaan madaxweyne noqdo dadka qaaraa sidaa ama ogta mar ra-iisul wasaare haddii la yiri bes waaye ra-iisul wasaare meel ka hooseysa aniga ma ka hadlayo allah weli waa caafimaad qabnaa waana xoogannahay jowhar waxaan u tagay aniga awalan inay soomaali ogaataba anigu hadee nin
siyaasad ku dhex jiro ordayaan ahay kursi madaxweyne haddii aan saakay aanan gacanta ku hayn micnaheeda ma aha inaan meesha marka guri ku quflaanayo oo aanan dalkii diyaar u ahayn inaan shaqeeyo oo siyaasaddii dhex galo marka aniga muhiimadaasa horta iyo inaanba bulshadiiba inaan dhex galo bulshadii nin ka xirxiran inaan lahayn inay ummaddu aragta aniga labadaas iga muhiimsanayd xilka oo xildhibaan hadda aniga wuxuu ahaa horena waa usoo qabtay dee dhibkiisa iyo mashaakilkiisana waa aqaanaayo hadda yani hadduu ilaahay keena alxamdulilah laakiin inaad bal ka soo baxdo adiga madaxweyne xagga fadhiiso un halagu yiraahdo adigana aad meesha gacmaha ay ku laalaabnaadaan oo aad tiraahdo bas maxamed cabdi waare un miyaan gaadaa marka ya oo ninkaa goormaa meesha laga tuuraya miyaan idhaahdaa aad ku laabatida waa maya in hore loo socdaa loo baahan yahay in dalka la dhexgalaa loo baahan yahay in la shaqeeya loo baahan yahay anigu taasaa iga go-an waa gartay yaad aaminsan tahay in ay ku lug lahaayeen xilka qaadistaadii samaday ka xugmanayd markaan guud ahaan waxa marna waa la isku eedeeyaa hebelow adaa idulmiye adaa saana adaa kana waxna waxa waaye xukun alla waaye isku soo duuduub xukun alle ku dhacday arrintaa ahlan wasahlan qadarka ilaahayna waa la aqbalaa waa gartay markaan ka gudubno arrimahaas oo dhan siyaasadda intii aad ku jirtay ma jiraan siyaasiyiin ay idinkala geysa siyaasadda لا waxaan ahayn horta aan ku waramo ciyaal xamar aan xaafadaan aan hadda deganahay halkaan aan ku koro banooni la ciyaaraya waa la isku feeraya banooni galaaskii iskoolka marka laga soo baxo la isku feeraya saacada la idin kala jiido hadana meel kale isaga soo horbaxaysaan walaalatiin oo saaxiibatiin ishuuga un marka la isku hayo aniga dhaqanka noocaas aan horta ku koray yani nin cuqdad ku nool baa ishuu qof inaan isku qabanno waa laga yaabaa ishuuga aan isku qabanno laakiin anigu kaasuu ii taagan yahay kaa dhinacunbuu u dhacayaa wax kaloon qofka isku haysanaa maba jiraanba marka anigu qof aan leeyahay hadda maanta siyaasad ahaan waa cadow oo yacni aan cadowsanayo ma laha qof aan wax u haystana ma laha sababtoo shalay markaan anigu hirshabeelle tegayey samaday ka xugmaneed waxaa la tuhmayaa dowladdii jirtay beriga inay aniga support garaysay ninka ugu dambeeya oo ay ogoshahan ahaa inuu meesha madaxweyne ka noqdo ninka ugu dambeeyay oo raalli ka noqon kartay inuu meesha madaxweyne ka noqdo ayuu ahaa 4 sano madaxweyne xasan sheekh madaxweyne ahaa maalin ayaan is salaanay bas halka maalin ayaanan telefoon inta kala qaadanan maalin kalena telefoon aan isku maqalnay waa 4 sano oo madaxweyne ahaa waxa suu ka soo xigtay markaan madaxweynaha Hirshabeelle noqday dadku soo waxa u haystaan ninkii soo baxaba ciidu iskama soo baxdee yacni waa la keenaa samada wixii ka xugman waa dhacayaan waa gartay arrimahaas oo dhan markaan ka gudubno waxaa tahay nin siyaasi ah tahay dhanka kale markaan eegno isboortiga fanka iyo suugaanta maxaad ka xiisaysaa dhanka isboortiga haddaan eegno ma jiraan kooxo aad taageerto wallaahi banooni horta waxa waaye anaa ciyaal banooni ahaaba kaalchadana waa ciyaari jiray tenniskana waa ciyaari jiray runtii biingaha bahalka la yiraahdo waxoogaa waxbaa laabanoo naftiisa ciyaari jiray marka isboorti runtii sanooyinkan dambe haddee waxoogaa waa lasoo cuslaanaya marka dhalinyaro lama aha dadka haddee hobbigoodu yahay inay banooni u fadhiyaan oo ay banooni ku lumiyaan maahi fanka kooxa aad taageerto ma jiraan kooxa aad taageerto fanka wuxuu ahaa Barcelona iyo yacni Real Madrid iyo de kooxahaas oo idil waxa marmar jaaniska waa la kulmaa waa daawada laakiin waqti ma haysidba boqol walxooda maskaxdaada ku mashquulsan tahay ma ogta marka dhinaca fanka waa daawada saas oo kale heesay waxa ay haddaan arko fanaaniin badan oo dhalinyaro ah soo baxday iyo kulli waa arkaa
waa daawadaa marka yani nolosha waa inaad la socoto waa ku qasban tahay laakiin haddee siyaasad mar haddaad dhex gasho yani ummad iyo dad iyo mas-uuliyad fara badanaa ku saaran oo howl badanaa kugu jirto maskaxda 24 saac waxaasayba ku mashquulsan tahay maogtahay arrimahan kale waqti uma ay helayso laakiin haddee anigu waxaan ka xiiseyn lahaa banooniga kooxaha dibadda ah kooxihii dalka ahaayo runtii horseed iyo jenya iyo munishibiyo iyo madbaacadda iyo dekedaha iyo yani waxool muxuu ahaa yani oo soo laabta oo miisaankii ay lahaayeen ay banooniga ku lahaayeen dib u yeeshaan aniga runtii aada u xiiseyn lahaa sababtoo ah cayaaraha meel fiicanan ka gaarnay cayaaraha isboortiga meel aada u fiicanan ka gaarnay kooxaha jiray yani xamar dhalinyaradu shaqo kale ma aysan lahaynba waan xasuustaa muxuu ahaa banooniga aan cayaarayna mararka qaar sharadaa la cayaari jiray wax la yidhahda xamara mararka qaar banooniga wuxuu nooga baaqanayay sharadka kooxdii aan u ballansanayn markee maanta waxaa cayaaraysa horseed iyo munushibiya cayaaraysa ama muxuu ahaa jenya iyo waxaa waaye dekadiya isku soo baxay oo muxuu ahaa isku jirooniya cayaaray marka yani banooniga xiisihii iyo macaankii u lahaa sidoo kale basketka aada iyo aada yani horumar weynaan ka gaarnay marka in taan la xoojiyo oo dhalinyaraduna aada garoomo la helo runtii inkastoo meelihii garoomada noqon lahaa iyo wixii idil dalka yani burburkii ku dhacaya isboortigana ku dhacay ugu dambeyntii hankaagii siyaasadeed halkuu ku wajahan yahay maxaad si oran lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa aniga hankayga siyaasadeed horta siyaasadda dabcan ilaa oday waayeela oo ul cuskanaya aan ka noqdo horta waa ku jiri doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sida aan aaminsanahay sababtoo haddee maqaayadna ma furan karno dukaanna ma furan karno maanta marka siyaasaddii nafteedii aan ku qasban lahayba inaan ku dhex jirno ayadaa isku ilaalino ayadaana ka shaqayno ummaddeena inaan u shaqaynaa waa waajib wey waayo dalkana waxna soo baray canshuurtii dalkana wax ku soo baranay yani dalkan oo qurux badanoo horumar tiigsanaya ayaan ku soo kornay oo yani sawirkii iyo sawirka maanta jiraahu shaqo iskuma laha marka kaa in la soo celiyo hamiga ugu weyn horta oo aan leeyahay anigu kaa waaye kana shaqeeyo axsaab waqtigeeda allah na gaarsiiyaan leeyahay anigu hadda axsaab iskala bood macno weyn ma sameynayse waa inay axsaabtu ka horeysa mabaadi mabda dhab ah oo laga shaqeynayo waa inuu jiro mabdaa iyo fikirkaana mid laga miro dhalin karo uu yahay markaana yani axsaabtu waa soo baxaysa ugu dambeyn waa la gaari doonaa qofkii kursi u tartamaya inuu xisbi iyo wax inuu ka tirsanaado laakiin hadda axsaab mucaarad ah oo wada ordaysa oo yani kursi un lagu raadinayo macno weyn ma sameynaysaa anigu waxaaba ila haboonba 2-3 xisbi inay ku koobnaadaan ayaa ron laakiin qof walba hadduu yidhaahdo anigu xisbigaan samaysbay xisbiga horta anaa ku dhawaaqay waa diiwaan gashtay xisbi laguma noqdo xisbi wuxuu u baahan yahay yani barnaamij qoto dheer u baahan waaye dhisidiisa taladiisa isfahamkiisa xisbiga ugu horeeyana dabcan wuxuu ka soo baxaa dhinaca dowladdu ka yimaada yani xisbiga talada dalka haya marka shaqeynaya ciddii hadda markaa u aragta taladaa tala ka fiican inay haysa ee ayada ay isfahmi waayeen oo xisbi kale aadaysa waa gooni laakiin xisbi haddii si daacada loo hadlayo wuxuu ka imaanaya marka ugu horeysa dee dalkii madax iyo maamul uu leeyahay maamulka iyo dhinacaasu ka imaan karaa ninkii marka taa waafaqsanna taasuu ku shaqayn doonaa taasuu ka mid noqon doonaa taasuu wixii ka qaldan hala saxo ninkii haddee maba ay anfacaysa dhahayana markaas haddii gruub kaloo israadsada maahane qof walba inuu xisbi la ordaaho macno weyn ma laha marka anigu dhinaca waa dhinaca ummadday daawanaysa guud ahaan waxaan dhihi lahaa yaan la niyad jabin dalka hore u socdaa waa xaqiiqo yaan la niyad jabin waxba ma jiraan yaan laysdhihin waa la burburay waa la hoogay yaan laysdhihin meeshii un aan shalay gaarnay meel ka xun horta oo maanta filayna inaan haddana ku dhacnaa ma jirto dhexda hala dhuuqsado hala shaqeeyo dowladda halala shaqeeyo mucaarid ha layska daayo
hala noqdo maxuu ahaa يعني qof walba ha u istaago dalkan waa la dhisi karaa waana lagu soo celin karaa siduu shalay ahaa iyo si ka qurux badan intaba ka awood badan ka dhaqaale badan ka maxuu ahaa horumar badan intaba aaday u sahlan tahay laakiin waxaa la rabaa dadku inaysan niyad jabin la rabaa oo ayagu horta marka hore kalsoonida qabaan haddaad hadda kalsooni ku qabi weyso dowladda iyo maamulka kuu dhisan dee xageed aadaysaa mid kale allah ku gaarsiiye mid kale markuu yimaado laakiin kuwa jooga hadda haddaad la shaqayn weyso dee adigiyaa waxaa ka shaqaynaya inuusan dalkii hore u socon anigu marka waxaan leeyahay dowladda halala shaqeeyo hala taageero dhib ku qab dheef ku qab la shaqee dowladda sababtoo danta ummadda ayaa ka weyn wax walba oo ah in hore loo socdo guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka madasha siyaasiga oo toddobaadkan marti uu ku ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Dr. Cali Cabdulaahi Cosoble barnaamijka intuu soconayay waxaan kaga mahadcelinayaa Guleed Aadan Muuse iyo Cabdulle Muuse Xasan iyo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle oo naga aqbalay in halkan aan ku wareysano inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo amaan Allah aad amaahinta madaxweyne